waxaa sii xoogaystay ismaandhaafkii ka dhexeeyay wadamada Yurub. Gaashaanbuurtii uu hogaaminayay boqortooyada Ingiriisku ayaa isku dayay inay guul ka gaadhaan weerar ay ku qaadeen boqortooyadii Cusmaaniyiinta oo dagaalka ku soo biiray 1914kii. Xulafana la ahaa kooxda Central Powerska oo ka koobnaa Germany, Austria-Hungary, Bulgaria iyo boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Magacan Central Powers ayaa loogu bixiyay goobihii ay ka dagaalamayeen ee Germany iyo Austria oo ku yaala bartamaha qaaradda Yurub. Bishii Afraad 1915kii, gaashaanbuurtii uu Ingiriisku hogaaminayay ayaa qabsaday in badan oo ka mid ah Gallipoli Peninsula oo ah waddanka Turkiga. Mashruucan ayaa ahaa mid ay gaashaanbuurtani ku doonayso inay doonyahoodu kaga gudbaan Dardanelles oo ah marin-biyood dhuuban oo dhererkiisu yahay 60 mayl, kaasoo kala qaybiya qaaradda Yurub iyo qaaradda Aasiya. Gaashaanbuurtan uu Ingiriisku hogaaminayay ayaa doonayay inay ka gudbaan Dardanelles si ay u qabsadaan Constantinople oo ah magaalo soo martay xukunno kala duwan, waqtiganna waxaa loo yaqaanaa Istanbul oo ku taalla waddanka Turkiga. Bishii koowaad 1916kii ayaa gaashaanbuurtii boqortooyada Ingiriisku hogaaminayay iskaga soo wada baxeen Gallipoli Peninsula kadib markii ay ka soo gaadhay guuldarro ballaadhan. Gaashaanbuurtii uu Ingiriisku hogaaminayay ayaa sidoo kale ciidamada Cusmaaniyiinta kula dagaalamay wadamada Masar iyo Mesopotamia. Isla waqtigaas waxaa waqooyiga dalka Talyaaniga iskaga hor yimid ciidamadii waddanka Talyaaniga iyo kuwii waddanka Austria oo halkaas fooda isku daray 12 dagaal oo qadhaadh. Dagaaladan ayaa ka dhacay dhinaca webiga Isonzo oo ku yaala xuduudka labadan dal. Dagaalkii ugu horreeyay ee Isonzo wuxuu dhacay dabayaaqadii 1915kii, wax yar kadib markii ay dowladda Talyaanigu ku soo biirtay dagaalka, iyagoo la safnaa gaashaanbuurtii uu Ingiriisku hogaaminayay. Dagaalkii 12aad ee Isonzo, sidoo kalena loo yaqaanay dagaalkii Caporetto, wuxuu dhacay bishii 10aad 1917kii. Ciidamadii Jarmalka ayaa caawimo siiyay kuwa Austria, sidaasina waxay u saamaxday Austria inay ka gaadho guul ballaadhan dagaalkaasi. Kadib dagaalkii Isonzo, dowladda Talyaanigu waxay caawimo aad u ballaadhan ka heshay wadamadii ay isku xulafada ahaayeen ee Ingiriiska iyo Faransiiska. Markii dambena waxaa ku soo biiray ciidamadii dowladda Mareykanka, waxayna gaashaanbuurtani sidan kula wareegeen dhulkii Talyaaniga laga haystay. Sanadihii ka horreeyay intaanu bilaabmin dagaalkii koowaad ee adduunku, ciidanka badda ee dowladda Ingiriisku wuxuu ahaa mid aan cid u babacdhigtaa aanay jirin. Laakiin markii dambe dowladda Jarmalka ayaa samaysay horumar aad u ballaadhan, kaasoo buuxiyay kala duwanaanshaha awoodeed ee u dhexeeyay ciidamada badda ee wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Gujiskii dowladda Jarmalka ee U-boat submarines la odhan jiray ayaa dowladda Jarmalka ka dhigtay mid ku xooganaata dhinaca badda. Intii uu socday dagaalkii koowaad ee adduunku, iska horimaadkii ugu weynaa wuxuu ahaa dagaalkii Jutland, wuxuuna dhacay bishii shanaad 1916kii. Xeebta waqooyi ee dalka Denmark waxaa iskaga hor yimid wadamada Ingiriiska iyo Jarmalka. Waxaa dagaal ka qayb qaatay 250 doonyood oo dagaal iyo 100,000 oo askari. Markii dagaalku dhammaaday, labada dhinacba waxa ay sheegteen guulo, laakiin ciidanka Ingiriiska ayaa la wareegay gacan ku haynta xeebaha waqooyi. Dagaalkii koowaad ee adduunku wuxuu noqday iska horimaadkii ugu horreeyay ee la soo bandhigo awoodda diyaaradaha, walow aanay diyaaradaha waqtigaasi ahayn kuwo u awood badnaa sida ciidamadii badda ee Ingiriiska ama gujisyadii Jarmalka. Waqtigii dagaalka koowaad ee adduunku socday, duulimaadku wuxuu ahaa wax marka si loo eego adduunyada ku cusub. 11 sano ka hor intaanu dagaalka koowaad ee dunidu bilaabmin, ayaa ahayd markii ugu horreysay ee diyaaradi samayso duulimaad rasmi ah. Wright Brothers waxay ahaayeen laba walaalo oo ka soo jeeda Mareykanka. 1903 waxay soo bandhigeen diyaaraddii ugu horreysay dunida ee samaysa duulimaad. Labadan walaalaha ah ayaan midkoodna soo marin waxbarasho heer sare ah ama jaamacadeed. 2 sano kadib waxay wax ka beddel ku sameeyeen diyaaraddii, waxayna soo bandhigeen diyaaraddii ugu horreysay ee leh awood dhammaystiran oo ay duulimaad ku samayn karto. Waqtigii uu socday dagaalkii Maane oo ka dhacay dalka Faransiiska, xogaha ay soo dirayeen duuliyayaasha diyaaraduhu ayaa gaashaanbuurtii Mareykanka iyo Ingiriisku hogaaminayeen u fududeysay inay ogaadaan daldaloladii ciidanka Jarmalka, waxaana sidaasi ciidanka Jarmalka lagaga saaray dalka Faransiiska. Bishii lixaad 1912kii, Mareykanka ayay ahayd markii ugu horreysay ee qoriga dirandooriga u dhaca lagu rakibo diyaarad, laakiin waxay ahaayeen kuwo aan hagaagsanayn. Xabadda laga rido qoriga diyaaraddaasi saaran waxay dib ugu soo noqonaysay isla duuliyaha diyaaraddaasi. Maureen Saulnier L waxay ahayd diyaarad Faransiisku soo saaray oo noqotay xalka lagaga gudbay xabaddii ku soo laabanaysay duuliyaha diyaaradda. Dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka, wadamada Ingiriiska, Mareykanka iyo Faransiisku waxay shanjibaar ka sarreeyeen waddanka Jarmalka dhinaca soo saarista diyaaradaha.
bishii afraad 1918 dowladda Ingiriisku waxay soo saartay diyaarad dagaal oo lagu magacaabo Royal Air Force oo u hawlgasha si ka madax bannaan xurimaha kale ee ciidanka. Diyaaradda Royal Air Force ayaa awood weyn ku soo kordhisay militariga dowladda Ingiriiska, waxaana sidoo kale qayb weyn ka qaadatay dagaalkii labaad ee adduunka. Sidoo kale waxaa loo isticmaalay dagaallo waqtiyo dhow dhacay sida dagaalkii Ciraaq. taariikhda dagaalkii koowaad ee adduunka qaybtiisii saddexaad intaasi ayay ku egtahay. Haddii aad channelkeena ku cusub tahay fadlan ha ilaawin inaad channelkeena subscribe saarto, sidoo kale muuqaalka like saar, wixii faallahana qaybta commentiga nagula wadaag. La soco qaybta afraad.